السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa shacabka YouTube-ka aniguna waa Abduqaadir Xasan oo duuliye is arag wanaagsan. Muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa dadka qurbaha u soo socdo oo iminka wadada ku soo jira iyo kuwa yimid ee iminka ku cusub. Laba jeer oo go'aano qasab ah ay ku qaataan in ay guursadaan. Iyo sidoo kale qofka qurbaha markii uu soo socdo ama qurbaha uu ku cusub yahay xilliyo uu markaas u nugul yahay qofkaas inuu balwad barto. haddaba muuqaalka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa muuqaalkeenan aad ayuu u xiiso u leeyahay. waxaan ku leeyahay marka ugu horeysa waxaan ku xasuusinayaa inaad YouTube-ka subscribe inoo saartid sidoo kale muuqaalka laagta inoo saar. haddaba muuqaalkan haddii aad wax ka faa'iidid insha Allah qof adiga qurbaha ku cusub ama qof aad taqaanid la wadaag. waxa jiro xilliyo qofka markuu qurbaha imaanayo ama u soo socdo ama uu yimaado oo go'aano guur ah oo si qasaba ku qaato si asaga ka soo go'dayna waa uu ku qaadan karaa laakiin badanaa waxay u badan tahay inuu si qasaba ku qaato haddaba go'aanadaas goorma qofka qaataa go'aanka ugu koowaad qofka markuu tahriibka ku jiro ayuu go'aan qasab ah oo guur qaataa kaba soo qaadba badanaa gabdhaha ayaa markaa go'aanadaas qaata sababtuna waxay tahay gabadha markii ay soo tahriibayso oo ay wadada marayso waxa laga yaabaa in gabadhaasi uu ka go'o saadko kale ama qarashkii laga bixin lahaa ay weydo kale ama familkooda ay wax u waayeen oo gabadhaas qarash ka bixi waayeen oo kale marka gabadhaas waxa laga yaabaa inay istusto xiriir inay la samayso dadka tahriibiya oo markaas sidaas wadada ku soo marsiiya ama magafaha uu soo bandhigo ama kuwa dadka tahriibiya ay u soo bandhigaan ama dad lacag haysta ay u soo bandhigaan oo ay dhahaan waan isguursanayna si adigana wadada aan ku marsiino oo aan qarash kaaga dhiibno gabdhuhu badana xilliyadaas ay go'aanka degdegga ah ee guurka ay qaataan wayna u badan tahay 99% gabdhaha badana tahriibka ku soo guursada intooda badan waa gabdho u soo guursaday qaab markaasi sidii qarashka looga bixin lahaa amal ha noqoto magafe ha noqoto kuwa dadka markaa tahriibiya ha noqoto dad adigu qarash haysta oo markaasi ay isdhaheen gabadhu ay istiri ninkan hadaad guursatid wax laga yaabaa qarashka inuu ka bixiyo marka labaadna waa marka kaamamka ay gabdhuhu ay ku jiraan oo kale ama wiilasha laftirkooda ay ku jiraan kaamka ugu koowaad markuu qofku ku jiro oo uu soo marayo waxa uu markaas qofkaasi baranaya dad kala duwan ayuu baranaya gabadha waxa laga yaabaa inay istusto ama wiilku uu istuso waxa laga yaabaa in uu yiraahdo qofkaas sharciga ee wadanka degan baro oo xiriir la sameeyo si markaasi ama sharci ugu qaadatid ama qofkan uu kugu dacwoodo ama qofkan gurigiisa aad u degtid guurka marka wuxuu noqon karaa mid danaysi ah oo qofku is yiraahdo wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo ay isdhahaan macnaha qofkan hadaad guursatid uu ku dacwoon karaa ama qofka uu ku sheegan karaa ama qofkan waa la degi karaa ama dadka qaar ah istusoo is yiraahdo hadii sharci lagu diido wax walba la kulmi kartaa laakiin qofkan asaga la deg asaga is sheegta si asagu ku yiraahdo gabadhan anaa qabo ama wiilkan waan isqabnaayo kale marka waa steepka labaad ee qofku marka uu ku qaato go'aan ah in uu guursado marka way jiraan guur macnaha dadku iska heleen ama dadku iscalmadeen oo sidaas isku guursadaan laakiin intooda badan ma badna xilliyada uu qofku marka balwada barto xilliyada balwada qofku barto balwada waxaan ka hadlayaa waxay tahay sigaarka waxyaabaha kale ee lacabo shiishada waxyaabahaas oo dhan ha noqdaan wax balwad la yiraahdo afka la galiyo ama drugs ah oo kale qofka xilliyadu barto ayaan halkan ku gul wadaagaya haddaba marka ugu koowaad waa qofku markuu soo tahriibayo ama markuu qofku safar yahay sababtoo ah qofka markuu safar yahay muddo dheer ayaa wax laga yaabaa baabuur inay saarnaadaan dadku inay haraadaan dadku inay rafaadaan dadku inay baahdaan waxa laga yaabaa marka qofka inuu istuso inuu yiraahdo balwadan oo kale hadaad cabtidoo kale waxa laga yaabaa inaad awood ama energy aad ka shido kale si marka calooshaadu ama jirkaagu ugu dulqaato inuusan si fiican ku baahnaan ama san baahido si fiican aysan ku karin marka koowaad waa qofku markuu soo tahriibay ama safarka uu soo yahay boqolkiiba inta badan
dadku markaas ayay balwada bartaan. Marka labaad qofku markuu kaamka ku jiro, kaamka markii lagu wada jiro dad badan ayaa isla degan, qaar balwad leh iyo qaar aan balwad lahayn. Qofka marka wax laga yaabaa in la yiraahdo kale maanta waxaan soo iibino kale dhamiyo kale ama waxyaabahan inta wax la cabo kale la yiraahdo waxaan niyo ma tijaabiso kale ama shishadu meesha lagu cabo kale waxyaaba noocaas oo kale. waa marka labaad ee qofku balwada barto. marka saddexaadna waa marka kaamka lagu jiro, kaam guriga kale lagu jiro, meesha sharciga lagu sugayo. markaas laftirkeedana waa laga yaabaa qofku inuu balwad barto. waxa laga yaabaa qofku inuu dad kale la degan yahay balwad leh kale ama markii uu baxo kala dhalinyaro kale balwad isticmaasho kale u tago shishad ayuu cabaayay ama waxyaabo kala sameeynaayo kale. marka waa marka saddexaad ee qofku uu balwada barto. haddaba haddii aad qurbaha hadda kadib imaanaysid oo aad balwad lahayn ama haddaba ku cusubtahay, waxaan ku leeyahay inta aan soo sheegay ka taxadar. haddii aad qof iscalmateen ee aad isguursanayseen oo si caadi isku guursanayseen waa wax la gartay, laakiin ogow guurka xilliyadaas ayaa markaas dadku guursadaan, waxayna u guursadaan sababtu waa danaysi. in danaysi aan lagugu soo gelin ama adigoo aad dad ugu tagin, haddaba sidaas u ogow. midda labaad oo ah balwadana, haddaba iska ilaali xilliyadaas inaad balwad baratid. dhib walba oo aad maraysid haddaad balwad aqoon, ha isku dayin inaad wax macnaha balwada aad ka raadisid energy ama asdhahdid balwadana cab wax fiican ayaad ka helaysaa. haddaba ka digtoonow ayaan ku dhihi lahaa, balwadu wax wanaagsan ma ah. intaad balwad lahaan lahayd waxa ku wanaagsan inaad balwad lahayn. 100% nafsadaada ku dadaala haddaad hore balwad u cabi jirin. haddaad qurbaha timaado inaad wax balwada isku baran. balwadu mustaqbal ma lahan, nolol ma lahan, caafimaad ma lahan, dhinac walba way xuntaa. marka qofku qurbaha markuu imaanayana balwad bataatanba uma fiicna. iska ilaali balwad dhan inaad baratid. haddaad balwad lahayn alxamdulillah, haddaad hadda leedahana waxaan ku dhihi lahaa iska jar. qurbuhu ma ahan meel balwad ee waa meel shaqo ama waa meel waxbarasho. muuqaalka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. haddaba muuqaalo kale oo xiiso leh intaan ku kulmi doono waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.